فهد ياسين حاجي داهر ayaa waxa uu markan si la yaab leh u helay dhammaan siyaasiyiinta saameynta leh ee Muqdisho xilli sidoo kale xisbiga uu hogaamiyo Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ee si la yaab leh mar qura isku bedeshay aragtidii laga qabay iyo sidoo kaleba xubno siyaasiyiin oo saameyn ku leh Muqdisho oo ku biiray xisbigan ayaan kula wadaagayaa soo dhawaaw kulan ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa lagu go'aamiyay in la dhiso xisbiga hibad qaran ee uu hogaamiyo Cabdi Faarax Shirdoon Saacid kaas oo hadda gacanta ku dhigay dhammaan siyaasiyiinta saameynta leh ee ka soo jeeda magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya siyaasiyiintan waxaa si la yaab leh u hogaaminaya Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo muddaxiladkii hore si weyn ula dhameystay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhinaca kale Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ay weheliyaan siyaasiyiinta saameynta leh sida Maxamed Abuukar Ducaale oo loo yaqaan Islow iyo sidoo kaleba rag kale oo uu qayb u ka yahay Taabid Cabdi Maxamed Duqi hore ee Muqdisho siyaasiyiintan oo maalmahanba kulan ku lahaa Ankara ayaa go'aansaday inay xisbigan dhisaan isla markaana isaga tagaan xisbiye kale oo ay ku jireen iyo qaar kale oo iyaguba xisbiye lahaa sida Taabid Cabdi Maxamed oo dhowr jeer oo hore sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya sida qorshaha uu yahay siyaasiyiinta saameynta leh ayaa waxa ay dhawaantan soo gaari doonaan magaalada Muqdisho kadibna waxay bilaabayaan ololaha xisbigan ay ugu biirinayaan dad kale oo saameyn leh iyadoo oo mar qura ay isbedeshay aragtidii laga qabay Cabdi Faarax Shirdoon Saacid kaas oo bilo ka hor ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya dhinaca kale saameynta ballaaran ee uu yeelanayo Saacid waxa ay hoos u dhigaysaa saameynta iyo aragtidii laga qabo Farmaajo kaas oo ilaa hadda aan isku keenin xisbigiisa sidoo kalena sameeyeen dowlatus ballaaran oo siyaasadeed waxaana tani ay imaanaysaa xilli dhawaantan kulamo gaar ah oo Turkiga ku dhacay lagu go'aamiyay in la dhisi doono Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ninkan horay u soo noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya hadda waxa uu yahay ninka ugu cadcad ee u tartamaya xilka madaxtinimo ee Soomaaliya dhinaca kale saameynta ballaaran ee laga filayo ayaa sare u kacday kadib markii uu gacanta ku dhigay rag saameyn badan ku dhaxlay siyaasadda gudaha Soomaaliya gaar ahaan kuwa Muqdisho kuwaas oo uu hogaaminayo Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Taabid Cabdi Maxamed Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa la xasuustaa in horay isagu uu qayb lixaad ugu qaatay dhisidda madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynihii ka horeeyay Xasan Sheekh Maxamuud kaas oo haddana talada haya waxaana loo arkaa joker go'aamin kara arrimaha doorashooyinka marka la fiiriyo labadii muddaxileed ee uu sida weyn kaga soo muuqday dhisidda Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud si kastaba ha noqotee kulankan Ankara ka dhacay ayaa mar qura lagu gaaray go'aan muujinaya in uu saameyn ballaaran ku dhex yeelan karo arrimaha doorashooyinka dalka Cabdi Faarax Shirdoon Saacid kaas oo bilo ka hor magaalada Muqdisho kaga dhawaaqay xisbiga hibad qaran ee uu hogaamin doono